السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadkayga aan jeclahayow haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena aad soo booqato fadlan nagu taageer share like iyo warcelin dhiirigelin ayay noo tahay. boqorka Bollywoodka Shah Rukh Khan ama CRK jira aan ku koobnayn jilliinka filimaanta oo qura balse ah jilaa jaasaas oo saara filim ganacsade iyo hantila qayb naadiga kubadda cricketka ciyaara ee Hindiya Kolkata Knight Riders waxa lagu jirayaa inuu ka mid yahay jilayaasha ugu taajirsan adduunka hantidiisa ayaa in ka badan 600 milyan oo dollar waxaana uu ka mid yahay jilayaasha ugu caansan dunida uguna taageerada badan xog ururin la sameeyay 2008 waxa lagu ogaaday Shah Rukh Khan in ay yaqaaniin in ka badan 3.2 bilyan oo qof 2010 waxa uu ka mid noqday 100 qof ee ugu saameynta badan dunida kaalinta 12aad ayuu ka noqday majalada Times baaritaano iyo halbeegyo ay sameysay. Shah Rukh Khan waxa uu ku dhashay New Delhi 2 November 1965 waxaana uu ka soo jeedaa qoys muslim ah aabaha dhalay awoogiis waxa la sheegaa inuu ka abtirsado Afghanistan qoyskooda ayaa ahaa dabaqada dhexe aabihi waxa uu ka shaqeyn jiray qareen waxaana la yiraahdaa Muhammad Taj Khan hooyadina waxa ay ahayd garsoore Fatima ayaa la oran jiray ayadiisu waxa ay ula baxday Cabdiraxmaan waana ay ugu yeeri jirtay ilaa intuu ka shanjirsaday waxa uu la noolaa ayadii hooyadii dhashay laakiin markii uu dib u la midoobay hooyadii iyo aabihii ayay hooyadii u bixisay Shah Rukh Khan oo ah kelmad Hindiya oo la micno ah boqorka wajigiisa waxa uu waayihiisa waxbarasho ku soo qaatay iskool ku yaala Delhi oo la yiraahdo Santa Columba Khan waxa uu ahaa xariif dhanka waxbarashada ah iyo ciyaaraha waxa uu yaraantiisii bilaabay ciyaarta kubadda cagta sidoo kale muddadii uu iskoolka dhiganayay waxa uu ahaa jilaa masraxa u haysta ardayda ay soo iskoolka yihiin waxa uu matali jiray jilayaasha Bollywoodka waxa ay waqtigii yaraanta isla soo qaateen oo ay wax wada matali jireen Amrita Sen oo iyana aakhirkii noqotay tirisho weyn oo Bollywoodka filimaan kula jisha Shah Rukh Khan waxa uu Khan ku biiray college si uu u diyaariyo bijloor ku saabsan ganacsiga laakiin waxa uu waqti badan ku bixin jiray jilitaanka waxana uu qaadan jiray casharo ku saabsan qaababka jilliinka sidoo kale waxa uu bilaabay in master degree uu ka diyaariyo xiriirka dadweynaha jaamacadda Islaamiga ayuu ka bilaabay laakiinse waxa uu isaga tagay si uu u bilaabo mihnadiisa jilliinka waxa uu u dhintay aabihii kansar ku dhacay aawadii 1981 hooyadii waxa ay dhimatay 1991 maxaana ay qabtay aawadeed dhimashada waalidiintiisa kadib waxa la soo gudboonaaday nolol adag gaar ahaan walaashiis oo uu ku dhacay xanuun daran isagoon oo kafaalo qaaday nolosheeda waxa uu guursaday Gauri Khan oo ah hinduusiyad jacayl 6 sanadood kala dhaxeeyay kadib 1991 waxaana ay leeyihiin hadda 3 caruur ah waxa uu sheegaa Shah Rukh Khan inuu si adag u aaminsan yahay diinta Islaamka sidoo kale uu ixtiraamo diinta xaaskiisa waxaana ay kala raacsan yihiin caruurtiisu labada diimood sidoo kale waxa gurigiisa laga heli karaa Quraanka iyo sanamada ay hinduusiyiintu caabudaan bilowgii Shah Rukh Khan ee fanka waxa ay kulmeen Vivek Vaswani oo ah film sameeye waxa uu geeyay soo saare filimaanta ah oo la oran jiray GBCB oo aad u yareystay awoodiisa waxaana la sheegay inuu ku yiri kan muxuu jilaa noqdaa moodan aragtimiisu waxaad ba moodayay balse Khan kuma niyad jabin hadalka bilowgiisa lagu duray dadaalkiisa iyo kartidiisa waxa uu dad la'aan hadda yahay boqorka Bollywoodka gudagalka iyo isku daygiisa shaqo ee ugu horeysay mushaarkii ugu horeeyay ee la siiyo waxa uu ahaa kontrabi oo ku dhac waxaana uu ku raacay tareen si uu u soo fiirsado Taj Mahal waxa uu ahaa bilowgiisa dhabta ah ee fanid filimkii Diwana oo soo baxay sanadii 1992 tan iyo waqtigaasina waxa isaga dambeeyay guulo uu ka soo hoyay filmaani caan bixid dunida oo dhan ku baxda guulaha uu gaaray oo carshiga jilliinka uu ku hantay waxa ka mid ah filimkii Basigar oo uu ku matalay booska laadarka waxaana waa toorihii ugu horeeyay booska xun ee filimka jira waxa uu wax badan ka bedelay qaabkii filimada Hindiga ah waxaana isbedelay sheekooyinkooda filimaanta oo idil guusha uu gaaray aawadeed horey uma dhici jirin in jilaa toore matala uu galo booska laadarka soo bixidda filimkiisa kadibse waxa ay noqdeen atoorayaashu kuwa jeclaysta booska xun inay ku matalaan Shah Rukh Khan waa jilaa dadaal badan waxa uu bilaabay shaqadiisa 8 subaxnimo duubista filimaanta waxa uu wadaa 16 saac maalinkii waxa dhacda marmar inuu sameeyo hal maalin dhowr filim oo kala duwan waxa uu sid mudan sidoo kale inuu yahay jilaa qajil badan oo aad u xishooda sidoo kale waxa dhacda inuu diido dhunkashada afka inta ay socdaan duubista filmadu waxana uu ku sababeeyaa in ay tahay dhunkashadaasi mid gaar u ah dadka isqaba waqti badan oo uu ku guday jiray fanka waxa uu helay 10 bilood oo ah Filmfare 7 kamid ah waa jilaaga ugu fiican waana jaaisada ugu sarreeyay ee ay jilayaashu ku riyoodaan hanashadeeda Shah Rukh Khan kaliya ma aha jilaa oo kaliya tan iyo 2000 waxa uu sidoo kale ahaa soo saara filimaanta waana asaasaha iyo hantilaha laba shirkadood oo soo saarda filimaanta oo kala ah
Unlimited Dreams iyo Regis Entertainment. Shahrukh Khan waxa uu haystaa dhalasho Imaaraati ah oo uu qaatay 2008. Waxa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay ganacsatada dhaqaalaha badan ku leh Dubai. waxaana Shahrukh Khan uu leeyahay aqliyad ganacsi hanti ahaan waxa uu haystaa in ka badan 600 milyan oo dollar. haddaba Shahrukh Khan ma ahan jilaa ama sameeya filim Hindi balse waa ganacsade dhaqaale badan ku leh dalal badan oo dunida ah. hadda waxa uu ka tirsan yahay shirkadda Bollywood-ka in ka badan 28 sano. walina waxa uu keenaa oo jilaa filimaan uu ku matalo dhalinyaro tuug arday iyo boos walba oo looga baahdo. waxa uu ku dadaalaa hagaajinta muuqaalkiisa iyo qaab dhismeedka jirkiisa. Shahrukh Khan agoon iyo rajay xambaaray mas'uuliyadda walaashiis guuldarooyin badan uga soo gudbay dadaalkiisa iyo kartidiisa ka soo noqday erey ugu xumaa ee qof leh himilo iyo hadaf lagu yiraahdo bilowgiisii ee ahaa muxuu jilaa noqdaa. aragtidiisa waxay u egyihiin waxaase uu waqti uu ismuujiyay kadib uga dhigay riyo ninkii sida hore ku lahaa inuu mar uun ku nooloodo filmaan uu leeyahay inuu jiro. Shahrukh Khan dunidu waa goob ballaaran haddii aadan soo dhacsan xaqaaga muujin shakhsiyadaada lagama yaabo qofna inuu duuduub ku amaano. fadlan ugu dhiirigeli subscribe iyo share deena ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh.